السلام عليكم أصحاب تقاليد أيكو حرن channel كينا برهان بريقو كسر لو هدي تامرك كورس channel كا سبسكرايب نوصار فيديو غير نو لايك غير أصحاب تقاليد واكحم هاي بريان واكل مشغولناي وحبا يدي ما نسو بستكرين كرر لي هذا أصحاب تقاليد عاو وحربا إن أنكهدلو صدح قضب أو كسابسن ددك وح معارضة waxay u kala baxaan saddex qodob. qodobka koowaad nin wuxuu wax ku mucaaradaa gurigiisa, nina wuxuu wax ku mucaaradaa cilmi dhagoodnimo, nina wuxuu wax ku mucaaradaa wuxuu asagu soo baaray oo xaqiiqadeeda soo ogaaday. qodobka koowaad haddii aan ku bilaabo, ninka hunguriga wax ku mucaaradaa waa ninka caada qaataha ah oo lacag baa la soo siinayaa. markii lacag la soo siiyo waxaa la leeyahay ninkaas hebel ah intaas iyo intaas ka sheeg, asagoo aan fiirsan oo aan qofkaan aqoonin waxa uu yahay, sumcadiisa garanayn, waxa uu ku wanaagsan yahana garanayn, waxa uu ku xun yahana garanayn. qofkaan ilaa qof caada qaata lacag soo qaatee qofkii wuu imaanayaa, wuu ku degdegayaa, wuu ku fududaanayaa, waxyaabo ku turkuteen oo ka faafinaya wax allaala iyo wuxuu asagu rabo iyo sidoo asagu wax ku heli lahaa bariiskiisa, yacni uu ku dhacsan lahaa uu ku talagalaa. markaas wuxuu sameynayaa danihiisuu fushanayaa, wuxuuna sameynayaa inuu qofkaas sumcadiisa lugta la maro. qodobka labaad haddii aan u gudbo, qof wuxuu wax ku mucaaradaa cilmi dhagoodnimo, yacni qof baa u imaanayo wuxuu leeyahay niyo qofkii hebelaha moogtahay saanuu sameey, saanuu yeela, intuu ka dhacay. asagoo aan hubsan warkii wuu soo boodayaa, markuu soo boodo warkii wuu faafinayaa. wuxuu isku dayayaa, yacni aqoon qofkaas ku filan ma lahan, yacni qof ma ahan aqoon leh oo isku dayaya waxaan inuu ogaado ma wax xunaa, maxay dhibaato qofkan u keeni karaan, maxay yacni saameyn intee la egay qofkan ay geysan karaan. uu leeyahay yacni qof ku fakaraya ma ahan. intii caqligiisu uu gaaban yahay, intii yareedu uu qof ka maqlay ama uu social media ka arko ama nin wariya oo danaysta uu ka dhagaysto, uu la soo ordaya qofkii ku mucaaradaya. wuxuu leeyahay hebel waa saan, hebel waa saan, hebel saanu sameey, hebel saanu sameey, asagoo xataa aan laga yaabo inuusan ka warqabin ninkaasi waxa uu sameeyey ama waxa uu sameeyo ama waxa uu yahay iyo backgroundkiisa dhan asagoo aan soo fiirin ayuu wuxuu isku dayayaa qofkaas sumcadiisa inuu meel uga dhaco. wuxuuna meel uga dhacayaa waa aqoon daradiisa, xataa hadday dalkiisa tahay wuu ku xadgudbayaa. qofka bini aadanka waxaa la rabaa markuu wadani yahay ama masiir leeyahay ama magac leeyahay inuu ka fakaro horta waxaan uu sheegayo maxay geysan karaan, damage intee leeg ay geysan karaan, maxay dalkaaga u geysan karaan, muxuuse dadkaaga muxuuse shaqsiyan qofkaagan adiga ah wax ka sheegaysa muslimka ee walaalkaaga ah ay u geysan kartaa. ma ka fakarayo, waayo qofkan aqoon ku filan oo durugsan ma lahan. wuxuu wax ku mucaaradaya waxaa waaye cilmi dhagoodnimo, yacni waa qof wuxuu ka maqlay. waana nasiib daro qof adiga asaagaaga ah oo adiga waxaa xataa laga yaabo inuusan age kaa weyneyn, waxa adiga uu kuu sheego inaa inta la soo oratid inaa qof ku mucaaradid, waa nasiib daro. qodobka saddexaad haddii aan u gudbo, nin wuxuu wax ku mucaaradaa wuxuu asagu soo baaray oo uu soo arkay. ninkaasi waa nin go-aan leh, waayo sheekadaani markii ama ha dhagaysto ama meel kale ha ka maqlo, wuxuu isku dayayaa wixii markuu arko. waa qof aqoon leh, waa qof yacni mawjadkiisa iyo mowqifkiisa la yaqaano meeshay u socdaan. wuxuu sameynayaa tillaabada koowaad uu qaado, wuxuu sameynayaa wixii uu maqlay buu raadinayaa, wuu soo baarayaa. markuu soo baaro kadib ayuu soo bandhigayaa, wuxuuna sheegayaa waxaasi inay yahayn wax la qaadan karin, wuuna iska diidayaa. qofkaasi waa marka waa qof mowqif leh. dadkuna inay mucaarad iyo muxaafad yeeshtaan waa waxa loo wada nool yahay. oo haddii aan mucaarad la helin waxba, qofkii toosnaa xataa ma sii toosmaayo, laakiin haddii qofkii toosnaa mucaarad loo helo waa qaladkiisa loo sheego. qofka bini aadan waa wuu qaldami karaa, ilaahay bisa ma qaldama ah. qofkii marka qaladkiisii loo sheego qofkii wuu toosinayaa, waxa ka dhimanna wuu dhamaystirayaa ilaa wuxuu arkay qof
qaladkiisa tusaa mucaaradnimada ma ahan xumaan mucaaradnimada waxa ay tahay qofka markii aad aragtid waxa qaldan inaa inta ku mucaaradid aa u sheegtid oo tiraahdo niyo waxaana kugu qaldan ee niyo waxaan iska bedel laakiin mucaaradnimadu ma ahan inta meel soo fariisat ama social media soo fariisat ama Facebook soo fariisat inta tiraahdo saana listimida waxaan sal iyo raad lahayn oo sal iyo baar lahayn oo bari ka maalin hadii xataa lagu weydiiyo oo lagu yiraahdo niyo waxaan maxay yihiin aadan meelna aadan u dhaqaaji karin lama rabo mucaaradnimada saas qofka mucaarad markuu noqonayo waxa laga rabaa inuu ogaado horta sidiisa banaanba waxaan wax ku mucaarada maxay yihiin waa wax sax ah sideeda banaanba dad hadii ay madax yihiin ama maamulay yihiin ama kuwa la maamulay yihiin waa qasab inay wax isku sheegaan taas waa masti in wax la isku sheego waa muhiim laakiin sida wax la isku sheegayaa waa wada qaldan ma wax la isku sheegaa wada qaldan wax ma la isku sheegaa laakiin wada toosan la isku sheegaa marka ninka wax sida saxda u mucaarada oo soo baara wax asagu maqlo oo sida nadiifka u soo baara waa ninka sidaas wadadaas mara oo wadada wanaagana dadka ku haga waana ninka ragga ah oo la dhihi karo waa nin wax mucaaraday laakiin inta meel soo fariisatay baq hal arrin aan iga yaabisay halka arrin aan iga yaabisay waxay tahay oo yacni marar badan aan la fajacay social media waa ku jira waana fiirsadaa halka dabeecado iga yaabisay waxa waaye wariyaasha qaar waxay sameeyaan markii dawladda wax laga yacni ay wax dhacaan waxba bilmatalan dhacay wixii markii bilmatalan ay dhacaan waxa la wareysanayaa nin xil laga casilay iyo nin hore wasiir soo ahaa jiray iyo nin baarlamaan laga diray qala wareysanaa tan hadda jooga ma la wareysto ma la weydiiyo waxa jira siday u jiraan ma la weydiiyo haddaas wariyada oo wax soo tabinaysid maxaa wax soo tabinaysaa haddaa baqaysid nin baqaayata nin hore taliyo hore la casilay iyo nin madax hore la casilay iyo nin xildhibaan la casilay markaas soo wareysanaysid nin ragaha tahay ragi SYL ee nabadda aragti lagu naaloonayo keena 13 jir 14 jir 16 jir ahaayeen laakiin ragga qaar hadda maanta jira ani hebel ma dhahay laakiin ragga qaar maanta jira ya haddaysa qori qaadan oo waxba dilin xataa afkooda iyo dalkooda iyo dadkooda ku dilaan laakiin waa nasiib darro aad iyo aad uga xumaada marka nimanka noocaas ah dhageysto sideeda banaanba hadda wax mucaaradaysaan soo mucaarada wax nadiif oo ah soo baarteen noola imaada cadaymana noor keena laakiin am sorry wixii nasal iyo baar minna inoo ogeyn la soo istaagaysan shooladeenana 100 kuna ku daawanaysa 200 kuna ku daawanaysa maxay 200 kun kugu daawanaysa dambigaaga kugu daawanaysa raqiib ictiida garbaha saaran shay allaale shayga aa sheegtana waa la qorayaa maalin aana la kala xoog badnaana la xisaabinaya aniga waxaan idin dhihi lahaa nimanka wax wareysanayo ha wareysanina nimanka ciilka qaba ee waxa wareysataan nimanka caafimaadka qaba mideeda kale wad qof markuu mucaarad yahay waxa loogu talagalay inuu ku difaaco dadkiisa iyo dalkiisa aa loogu talagalay oo uu dulmiga ku diido laakiin looguma talagelin inuu dulmiga dadka ugu horkaco ama se dad masaakiina oo maanta oo waxba ogeyn oo 30 sano oo dhalato dhamaata dawladooda oo dunsaneed oo xataa qaarkood aysan dawlad macnaheeda aqoon ma ahan ina maskaxda uga duqaysaan hadallada negative-ka ah ee aan marna jawaabta lahayn ma ahan ina uga duqaysaan maskaxda ee waxa waaye ina dadka masaakiinta oo maatada 30 sano dawlad la'aanta ina maskaxdeena dhista video wala share gareeya sidoo videogan uu dad badan u gaaro share gareeya inta nabada jecel share gareeya ka dareema videogan daawashadiisu waa inay dad badan gaartaa waa inay dad badan fariinteedana waa inay dad badan oo Soomaaliyeed gaartaa ilana soo wadaaga fikradeedaas hadii ay qaldantaa walaalayaal waa muhiim fikradeena ila soo wadaaga aad ayaa u caraysana aad ayaan uga xumaada waxyaabaha qaar marka aan arko runtii waa ka xumaada waayo waxa ka xumaada dalkaaga iyo dadkaaga masaakiin ah oo maata ah oo 30 sano oo dhalato dhamaata dunzana oo u baahan dhisid wariya maanta waxa joognaa madaxdeenu hadii qaldan yihiin xataa ina qarinaa leenahay waayo 30 sano aan farfar lagu taagay iyo qori lagu fiiqa ku soo jirnay faa'iidana waa ku keensan weyne I'm sorry
maanta ani waxaan aaminsanahay xataa ninkii qaldan in la qariyo waayo suu dalkeena u dhismo laakiin midkii wax yarba ay ka qaldamaan war ilaahay bisaa ma qaldama ah ilaahay subxaana watacaala asaga aayadiisa ku qur-aanka ku yiri dadka adoomahayga waxaa ugu jeclahay qofka intuu qaldama iisoo noqdo aniga ugu jeclahay ilaahay asaga ma dhihin miya adinka ma dadka qaladka ka ilaalisiin marka hore ilaahay subxaana watacaala muxuu qalad u sameeyey haddaa la qaldami lahayn ilaahay ma sameeyeen qalad laakiin ilaahay qaladku wuxuu u sameeyey in la qaldamo فيديوغان إيشير قرايا أصحابتي دقاليقة إيشير قرايا قف الله لي قفكو فيديوغان سو قارو هايشير قرايا انت سكسو قبقبين هايا مدونا إنا عرضي دا إذي كلاسي دول رعو أصحاب دقاليقة إيشير قرايا انت كليا إذن كعطسنا وحوال فيديوغا إنا إيشير قرايسان أو إيلاي قرايسان سيدو أقارو ميل دير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.